وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qayb ka mid ah barnaamijka Bayaanka Danab. Barnaamijka Bayaanka Danab waa toddobaadle aan ku soo qaadano warar iyo sheekooyin ku saabsan ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab. Waxaa jimco kasta 10 barqanimo aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee Bayaanka Danab ama Facebook-ga Danab Media. Waxaad ka dhageysan kartaa idaacadaha kala ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Beledweyne isla maalinimada jimcaha 3 barka galabnimo. barnaamijku waa qaybtii toddobaad waxaan ku soo qaadan doonaa waxa kamid ah wararkii toddobaadka ee ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab waxaana kamid ah Commandos-ka Danab oo khaarijiyay horjooga Al-Shabaab u qaabilsanaa canshuuraha. ciidanka Danab oo ka hortagay isku day weerar ismidaamina oo ku wajahnaa xarun ay ciidanku leeyihiin. ciidanka Danab oo gargaar cunto ah gaarsiiyay xarun lagu xanaaneeyo carruurta darbijiifka ah oo ku taala magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaa kaloo ku soo qaadan doonaa hanaanka ciidan qorista ee Commandos-ka Danab iyo siday muhiimad gaar ah ugu leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya inay ku biiraan ciidanka Danab. warbixin gaar ah ayaan idinka haynaa. waxaa kaloo barnaamijka ku soo qaadan doonaa howlaha miina baarista ah ee ciidanka Danab ay ka sameeyaan deegaanada laga xoreeyo nabadiidka Al-Shabaab. sidee dadaalada noocan ah ay u badbaadiyaan boqolaal Soomaali ah. barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anoo Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan. aynu ku bilowno wararkii toddobaadka ee barnaamijka Bayaanka Danab. ciidanka Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay deegaanka Caliyo Baro oo hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna ku dileen horjoogo ka tirsan Al-Shabaab. horjoogaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Nuux Dhagool ayaa kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha ay kooxdu ugu yeerto sakawaadka waxaana muddo ku raad joogay ciidanka sida uu xaqiijiyay kusimaha taliyaha guutada 16aad ee ciidanka Commandos-ka Danab dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure. taliya Xasan Tuure waxa uu sheegay in qorshaha howlgalku uu ahaa mid loogu hortagayo kuwa caadistay inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana ka qaadaan lacago sharci darro ah oo baada. Danab ayaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay kordhisay howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamo ka tirsan ururka 6aad ee guutada 16aad ee ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa fashiliyay qarax ay Al-Shabaab damacsanayd inay ka geysato deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug kadib markii ay ciidanku toogteen qof isu soo miidaamiyay. toogashada oo ka dhacday afaafka hore ee xerada ciidamada ay ku leeyihiin Bacadweyn ayaa looga hortagay isu soo miidaamiyaha oo watay gaari uu doonayay inuu ku geysto qarax. ciidanka Danab ayay u suura gashay inay dilaan ruuxa taasoo baajisay weerarkii halkaasi ka dhici lahaa. ma jiro wax khasaare ah oo ciidanka ka soo gaaray fashilinta weerarka Al-Shabaab ay damacsanayd. dhanka kale ciidanka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxay howlgal lagu raadinayo xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab toddobaadkan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Camaara ee gobolka Mudug waxaana ciidanka u suura gashay inay maleeshiyaadka ku baacsadaan dhulka miyiga ah. saraakiisha Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalka hogaaminaysay ee ku sugan gobolka Mudug waxay sheegeen inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ilaa maleeshiyaadka laga cirib tirayo gobolka. iyadoo toddobaadkan loo dabaaldegay munaasabadda Ciidul Carafo ayaa ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxay deeq raashin ah gaarsiiyeen xarunta lagu xanaaneeyo carruurta darbijiifka ahaan jiray ee Maamo Ugaaso oo ku taala magaalada Muqdisho. waaxda arrimaha bulshada ee ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab ayaa raashin ka kooban bariis, bur, sonkor iyo saliid gaarsiiyay xaruntan oo lagu hayo carruur ahaan jirtay darbijiif hase yeeshee hadda xaruntan lagu xanaaneeyo waxaana lagu baro. tallaabada ay ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Commandos-ka Danab ku taakuleysay xaruntan ayaa qayb ka ah siyaasadda ciidanka ee gacansiinta bulshada Soomaaliyeed. wararkii toddobaadka ee ciidanka Commandos-ka Danab ay kuwaasi ahaayeen. weli waxaad daawanaysaan qaybtii toddobaad ee barnaamijka Bayaanka Danab. ma ogtahay barnaamijkan iyo barnaamijyadii horeba inaad ka helayso bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee Bayaanka Danab. ka mid noqo dadka ku xidhan boggeena YouTube-ka ee Bayaanka Danab. ciidanka Commandos-ka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mar kasta ku dadaala sidii ay u qaadan lahaayeen askar cusub oo ka mid noqonaya ciidanka. tallaabadan waxay dhiirigelisay dhalinyaro badan oo weligood ku hamin jiray inay ku biiraan ciidanka Danab. warbixintan soo socota waxaynu ku eegaynaa hadafka dhalinyaradaasi
iyo hanaanka ciidan qorashada ee kumaandooska danab. tan iyo markii dib loo howlgeliyey ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee danab waxaa sii kordhayay tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee danaynayo in ciidanka ku biiraan. waa qarannimo jacayl ay u qabaan dalkooda iyo in ay qayb ka noqdaan difaaca dalka iyo dadka. boqolaalka sanad kasta loo qorayo in ay ku biiraan danab waxaa ka mid ah dhalinyaradan oo laga kala keenay gobollada dalka. waxay saf ugu jiraan in ay iska qoraan ciidanka sida gaarka ah u tababaran. waxaa saldhigga danab ee Bilidoogle uga socda dhalinyaradan hawsha dhammaystirka qorista ka hor inta aanan la bilaabin tababarka rasmiga ah. maxay haddaba dhalinyaradan ku doorteen ku biirista danab? waxay tahay sababtay u qasabtay inaan ku biiro ciidamada danab inaan difaaco dalkayga, dadkayga iyo diintayda. waxaa marnay process wanaagsan. waxaa ka mid ah inaan marnay imtixaan physical marka koowaadna laga qaaday, kadib waxaa marnay writing, kadibna waxaa marnay medical. waxaan rajeynayaa inaan ka gaaro guul wacan kana mid noqdo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada danab insha Allah. sababtoo ah inaan difaaco dalkayga, diinteyda iyo dadkaygaba. aad bay u wanaagsaneed. waxaan maray part 1 physical, medical, writing iyo medical inaan horumar iyo guul ka gaaro insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. hanaanka ciidan cusub qorashada ee danab ayaa ah mid hufan, waxaana laga soo xulaa dadka ciidanka loo qorayo dhammaan gobollada dalka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed iyadoo aanan loo eegin qofka meesha uu ka soo jeedo. hase yeeshee waxaa jira waxyaabo si gaar ah loo eego ka hor inta aanan qofka loo qaadan inuu ka mid noqdo ciidanka. waxyaalo fiirgaar uu leeyahay waxa waaye qofku inuu lahaadaa xoog iyo qalbi iyo shaqadooyinka adag oo danab hayso oo inuu ninka ka soo bixi karo yahay. gabdhaha ayaa ka mid ah dhalinyarada loo qoro ciidanka danab. waxay helaan dhiirigelin iyagoo muujinayo sida ay ugu diyaar yihiin in dalkooda ay ugu adeegaan si la mid ah dhigooda ragga ah. Sahro Daahir Cabdullaahi ayaa ka mid ah gabdhaha loo qoray danab dhowaan. waxay maraysaa habraaca loo baahan yahay ay qaataan dadka cusub ee ku biira danab. sababtoo ah inaan difaaco dalkayga, dadkayga, diinteyda. waxay ahayd si wanaagsan waayo caafimaadka oo kaleeta la iga soo baaray, heerka waxbarashada oo kaleete boroseesyo badan waxa aan qaban jiray aa la iga soo wareystay. inaan askari daacada aan noqdo, dalkiisa, dadkiisa, diintiisa u shaqeeya, askari wanaagsan inaan noqdo. saraakiisha danab ee qaabilsan qorista waxa ay sheegeen in ay jiraan sababo mararka qaar keeni kara in dadka raba qorista loo diido in ay ciidanka ku biiraan. hase yeeshee ay mar kasta ku dadaalaan in ay taageeraan riyada kuwa haminayo in mar un danab ka mid noqdaan. dhalinyaradu wax bartay waxaan u baaqaa inay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidii ugu hortagaan cadawga dalka argixisada. ciidanka danab wuu sii kobcayaa sanadba sanadka ka dambeeya. waxaa ugu wacan tirada dadka ku biiraya oo sii badanayo, tababarada iyo xirfadda ciidanka oo aad u heer sarreysa. tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda al-shabaab laga xoreeyey qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalkeena Soomaaliya ayaa waxa kaliya ay kooxdu awooday waa inay miinooyin ku aasaan wadooyinka ay dadka shacabka adeegsadaan. hase yeeshee ciidanka danab oo og halista miinada ayaa kordhiyey dadaalada miinooyinka looga saarayo si aysan u waxyeeleen shacabka Soomaaliyeed. haddaba warbixintan ayaynu ku eegaynaa dadaalada noocan ay sameeyaan kumaandooska danab. ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliya ha noqdaan kuwa booliiska, nabad sugidda iyo xoogga dalka sida danab ayaa u tababaran ka hortagidda iyo baarista xeel dheer ee lagu sameeyo miinooyinka oo la sheegay inay ka mid yihiin waxyaabaha ugu halista badan ee galaafta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed sanad kastaba. halista miinooyinka dhulka lagu aaso ee Soomaaliya ka jirta waxay ka yimaadaan laba dhinac: xaraadigii miinooyinkii ka dhashay dagaaladii sokeeye ee dalka iyo kuwa ay aasaan kooxaha sida al-shabaab
warbixin sanadeedka 2020 ay dhawaan soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miina baarista ee UNIMAS waxay ku sheegtay in 472 dhacdo oo miinooyin dhulka lagu aaso ay ka dhaceen Soomaaliya sanadkii 2020 hay-adda waxay intaasi ku dartay in badi bartilmaameedka loola dan lahaa miinooyinka ay ahaayeen ciidamada xooga dalka kuwa nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada kale ee amniga Soomaaliya kumaandooska danab ayaa kaalin weyn ka ciyaara howlaha miina baarista Soomaaliya waxayna ciidanka meelaha ugu badan ee miinooyinka ay ka baaraan ay tahay deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee laga saaray al-shabaab kooxda ayaa la rumaysan yahay in wadooyinka ay badan adeegsadaan shacabka ay geliyaan miinooyin waxa ku soo qaban waxyaabo badan ee ummadda Soomaaliyeed ee ku haligi rabeen ee wadooyinka u dhigaan waayo qofka bini aadanka waxyaabaha qarxa adduunka dhan ay kamid yihiin inay dadka dhibaan nafna ku weyn karaan ee gacanna ka go'i karaan lugna ku go'i karaan boqolaalaan u jiisa saraakiisha danab waxay sheegeen in howlaha miina baarista ay sameeyaan ay yareysay halista ay shacabka la kulmi lahaayeen waxay ku booriyeen rayidka inay ciidanka la soo wadaagaan haddii ay arkaan waxyaabaha ay ku tuhmaan miinooyinka shacabku waxa ugu baaqaa hadeen arkaan waxyaabo qarxa oo meel yaalo inay ka fogaadaan aan ku degdegin ama aan ku ciyaarin hay-adaha caalamiga ah sida UNIMAS howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo militariga Mareykanka ayaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ka taageera tababarada howlaha miina baarista ciidanka kala duwan ee Soomaaliyeed sida danab ayaa kordhiyay awoodda ay u leeyihiin in markiiba ay si amni ah u kala furfuri karaan haddii ay arkaan miinooyin xilliyada ay howlgallada ku jiraan sii socoshada howlaha miina baarista waa mid naf badbaadin ah waxayna si kastaba faa'iido ugu jirtaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaa intaasi ku dhamaaday qaybtii 7aad ee barnaamijka bayaanka danab ku xidhnow boggeena YouTube-ka ee bayaanka danab ku dhufo calaamada gambaleelka si aad ula socoto barnaamijka kan xiga waxaad wararka iyo macluumaadka ku saabsan kumaandooska danab ka heli kartaa bogga Facebook ee Danab Media isla barahan bulshada ayaad fikirkaaga barnaamijka uga dhiiban kartaa waxaad barnaamijka ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho Radio Kismaayo Radio Galgaduud Radio Baydhabo iyo Radio Baladweyn nala wadaag fikirkaaga oo soo wac ama fariin qoraal u soo dir idaacadaha aad barnaamijka ka dhageysanayso barnaamijka waxay idila socodsiinayaan Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan waa inoo 7aadka dambe iyo barnaamij cusub intaynu kulmi doono dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo